ardayduna mar walba ay ka soo baxayaan dugsiyada sare waxyaabaha aan kala talin jirnay waxaa ka mid ahayd doorashada kuliyadaha ay dooranayaan jaamacadda ay dooranayaan iyagay u taala tasdib ma lahan laakiin kuliyadaha siday u dooran lahaayeen iyo nolosha isbeddelka ku imaanaysa ee xilliga kala guurka laga soo guurayo dugsiga sare lana tagayo heerka jaamacadeed expectationskii waxyaabaha laga yaabo in maamulka uu ka filiyo arrimaha noocaas oo kale wax waliba waxay isugu hoos imaanayaan hal arrin qof waliba waa inuu ku xisaabtamaa personal development-giisa iyo shakhsiyadiisa sidii uu horumarin lahaa taa qayb weyn waxaa ka ah sidii aad ku dooran lahayd meeshii mustaqbalkaaga aad wax ku baran lahayd kuliyadii aad aadi lahayd iyo waxyaabaha la midka ah waxaad arkaysaa arday doortay kuliyad isagoon u aabayeelin kuliyaddu inuu diyaar u yahay amaba uu ku fiican yahay ama mustaqbal ay leedahay oo kaliya uu galay waxaa galay caasho ama waxaa dhigta cali ama aabahay baa ku soo takhasusay takhasuskaas waxaana xaqiiqo ah aabahaa meesha uu ku fiican yahay inaad ku fiicnaatid suuragalnimadaas iyada ah 100% ma aha oo waa laga yaabaa aabahaa oo dhakhtar inaad engineer noqotid aabahaa oo engineer adiguna aad noqotid pharmacologist ama meelo kale inaad aadid oo kale ardayda marka waxaad arkaysaa sanadka labaad ama saddexaad arday dhiganaya oo dib intuu u eegay la leeyahay 6 maado 7 maado 10 maado 20 maado ayaa lagu leeyahay sanad dib u noqo niyad jab diif iyo diyahaal reerkii oo loo sheegi karin cidii oo qarashaad ay ka baxeen iimahaas iyo rafaadkaas oo dhan waxyaabaha looga gudbi karo waxaa ka mid ah in qofka marka hore uu sii ogaado meelaha uu ku fiican yahay quduraadkiisa iyo awoodihiisana uu og yahay aad ayay u fiican tahay dadka kaa horeeyay inaad fiirisid weydiisid su'aalo ku saabsan kuliyadda aad dooranayso mustaqbalkeeda